بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم waxaan ku taxarro casharkeedii labaad ee maanta casharkan waxaan ku eegayaa laba arrimood oo u baahan inayn la socono inayn la socono inagu waxaan uga jeedaa kunka qof ee Soomaaliyeed ee aan doonayay inay bedelaan bulshada kun qof baa Soomaalida dhan bedeli karta Soomaalida waa imise milyan waa 55 milyan 55 milyan sama kaba soo qaadba waa 30 milyan 30 milyan kun qof baa bedeli kara saasaan aaminsanahay waayo Soomaalidu maaha dad Soomaalidu kaliya maaha dadka oo dhan xitaa gaal iyo muslim maaha dadka badankiisu way jilicsan yihiin waa la bedeli karaa in yar baa bedeli karta kunkaasaan uga jeeda ugamana jeedo dadka badankiisa dadka badan ee daawada muuqaalkayga daawada badankoodu maaha dadka aan u jeedo waa dad gaar calaamadahooda waan aqaan dabeecadahooda waan aqaanaa siday u hadlaan waan aqaanaa ficilkooda waan aqaanaa dadka badankooda ay daawadaa ma garanayo sabab ahaan waa dadkaan u jeeda maaha waxaan malaynayaa way iska soo galaan wixii iyagu muuqaalkii la dhigaba way iska daawanayaan aniga ma garanayo waxay igu soo raacay anigu kama hadlo xafladaha aroosyada heesaha siyaasadda siday uga hadlaan muxuu ahaayey gawaadhi iyo alaaba iyo dalxiis iyo waxaa ma yihi qof shaqo waxaa kale waxaan garan waayay dadka waxaa igu soo kaxeeyey iska ilaahay baa khayr ta ugu horeysa waxay tahay dagaalkii ugu dambeeyay adduunka halku marayo iyo talabaad kunkaa qof waxay dagaalka adduunka ugu dambeeyay ka baran karaan iyo bulshada say u bedeli karaan ta ugu horeysa aan ku bilaabo oo ah dagaalkii ugu dambeeyay halku marayo maanta waa maalintii 14aad ee dagaalka xaqdarrada ah ay ku qaadeen Iiraan Mareykanka iyo Yuhuud iyo gaaladuba iyo munaafiqiinta shalay toole carabtii waxay ka ashtakeysay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Iiraan ayay ka ashtakeeyeen deedna waa lala yaabay waayo halkay taagan yihiin iyo halka Mareykanka reer galbeedku taagan yihiin isma oga dagaalkii ugu dambeeyey waa 14 cisho baan idhi waa maalintii 14aad ee xaqdarrada ahaa ee gumaystayaashu ay ku qaadeen Iiraan sabtidii 28 bishii labaad ee lasoo dhaafay Iiraan waxa ay dirtay duhurkii maanta salaadii jimce waqtigooda Soomaaliya iyo Somaliland bay isku waqti yihiin Iiraan mawjadii 45aad ee weerarka balanta runta ah ee afraad camaliyaadkii wacdi saadiq jawhar waxa ay Iiraan weerartay saldhigyada wadamada sunnaha ku yaala dadka kunka qof ee aan u jeedo kunka qof waxaa laga yaabaa qof ka mid inuu muuqaalka daawado wadamada sunnaha ku yaala ee Mareykanka iyo Falastiinta la haysto waxay garaacday magaalo madaxda Baxrayn maanta Manama Ciraaq muxuu ahaayey kurdida meesha kurdida ay joogto waqooyiga iyo Falastiinta la haysto bartamaha magaalo madaxda iyo waqooyiga Falastiinta la haysto weerarkan halqabsigiisa wuxuu ahaa yaa saaxiib al-samaan yaa saaxiib al-samaan qofkii carabiga yaqaana uu garanaya qofkii aan carabiga aqoon waa muhiim weyn oo carabiga barto carabiga waa isirkeennii ka mid tahay qur-aankaa ku qoran badankiina carab baynu kasoo jeednaa waan ogahay dadka qaar waxaa laynagu diray reer galbeedka laynagu diray carabta laakiin qof kasta waxaan ku dhiirigeliyaa oo kari kara inuu dhiiggiisa soo eego dhiigga qofka uu soo eego wuxuu ogaan doonaa inuu yamanta iyo carabta iyo waxaa jira ciraaq iyo Syria iyo Lebanon iyo Falastiin ka soo jeeda kuwa aan islahayn carab ma tiidine kuwaas iyo idinka idin taala kantaalada ay isticmaaleen waxa weeye Khaybar shaykan waa kantaal laga yaabay waxa weeye ka ugu yare waxa weeye haltan waxa weeye
jawaanku waa 100 kiilo soo maaha 100 kiilo waa jawaanku waa 10 jawaan weeye marka waxaa weerar ka wada qaaday ciidamada towradda ee iiraan ciidamada badda ee iiraan ciidamada dhulka ee iiraan qaybta diyaaradaha hayswada iyo jabhadda libnaan ayaa mar wada qaaday marka waxaa loogu talagalay in cadowga yuhuudda iyo maraykanka militarigooda la burburiyo oo la daciifiyo maraykanka uu daciifo jirtaba maraykankii mayaad islahayd maraykanka ku jabaya 2 wiig gudahood 4 cisho gudahood imsa dad muuqaaladeeda daawato waad heli doontaa kii 2 sano ka hor 5 sano ka hor waad helaysaa waa inaan maraykanku waxba ahayn waxaan kusoo halqabsaday inama yaroo hawiyaha oo dacas xidhan maxaa usi xidhan kumaaday marka halkaas u dagaalku maraya weerarku maanta waxa ay duhurkii u qaadeen salaadii jimce waa maalintii qudus si ay muxuu ahaye maalintaas u hirgeliyeen miyaad aragtay maalinta qudus waddan sunna oo laga sheegayo maayo casharkayga 2 kunka qof soomaaliya u baahanahay ay wax ku qaataan tad wax ku qaadanaysa waxa weeye u fiirsa wadamada la garaacaya waa wadamo sunna wadamada xaqdarada ka aamusana waa wadamo sunna wadamada kasoo horjeeda dulmiga iyo xaqa u dagaalamaya falastiin marka laga reebo waa shiicaduna waa islaamka waa imise ka mid a qaarkiin waxaa odhanaysaa shiicadu islaam maaha laakiin culumta sunnayaasha caalamiyada sunnayaasha waa shiicadu waa muslim bay yidhahdaa islaam bay yidhahdaa wax kale ku dhaleecayaan laakiin islaamka way u qoreen 15% bay ka yihiin shiicadu islaamka 95% waa sunni marka waxaad u fiirsataa halka ay sunnihii raaceen iyo halka shiicada raaceen marka waxaad isweydiisaa qur-aanka keebaa saxsan qur-aanka ku xisaabe aniga hadalkayga ha maqlin shiicada hadalkooda ha maqlin caalimyada daacadda ah ee sunnaha ah ee wax garanayana hadalkooda ha maqlin adigu qur-aanka sidaa u eeg shiicada ficilkooda sidaa u eeg dadka sunnaha ah iska daa xukuumadda iyo boqorrada iska daa ficilkooda sidaa u eeg deedna waxaad tidhahdaa keebaa qur-aanka u dhow waxaad ogaan doontaa inay shiicadu u dhowdahay qur-aanka 2 sano ka hor waxaan ku yiri dadka sunnaha war fadhi ka kaco xaqa ka hadla haddii ka dadka gaalada ee soo muslimaya imanka shiicay wada gelayeen waa 2 sano ka hor 2024 bishii koowaad bishii labaad bay waa 2 sano ka hor waayo waxaan arkay waxa imanka soo socda